Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaaladeyda qaaliga kusoo dhawaada channelkayga waa walaashin Ifraax. Sidee tihiin caafimaadkiina ka warama? Waxaan rajeynaynaa caafimaad qabtiin. comment igu soo qora inuu Ilaahay caafimaad idin siiyo rajeena. Haddii inta xanuunsan Ilaahay noo caafiyo. marka maanta asxaabe intaana qodobkeena guda galin waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago wax yar oo rabo inaan idin sheego. waxaan jeclaystay inaan channelkayga magac ka bedelo maadaama gabar walaashay oo youtuber ah isla heesana magac Ifraax channel oo asxaab badan iyo family badan ay ugu dhaheen channelkaaga magaciisa maxaa waaye channelka magaciisa oo yacni gabar kala haysato adimiya marka su'aalo badan ka imaaday. marka waxaa jeclaystay inaan magac oo qaas ah inaan ani channelkayga u sameeyo soo dad kasta oo yacni u fahmi karaan oo channelkayga u soo booqan karaan hadoo marka insha Allah channelka magaciisa bisteemaystay ama yacni oo aan ku gaaray waxa waaye Ifraax Home Decor. channelkayga wuxuu ku saabsanaan doonaa waxyaabo badan hadii ahleed vlog style guri hagaajis DIY yacni wax kasta oo ku saabsanaan doona hadii Ilaahay raado oo ka ahay prank ma jecli marka prank hal iska dhaafo adii lahay. marka asxaabayinka wax kasta oo guri ku saabsan hadii ahleed decorka hadii ahleed lifestyle-ka wax kasta insha Allah jeclahay inaan la soo wadaago oo hadii ahaalad ka faa'iideysanaysiin wax waa jeclahay inaan idin la soo wadaago. marka asxaabay maanta waxay rabaa in wax barto hooyo ahay oo wax barato marka babyga hadda uu hurdooyaa marka intuu babyga hurdaya ka faa'iideysana hadda marka waxa soo qaadanaa daatadeyda saa u jeedin meesha miiska saaran tahay marka daatadeyda soo qaadana iyo buugaagteeda waxaa rabaa inaan wax aqriyo oo xoogaa casharooyin iskuulka ku lamneeyo ama ku diro. saa ogtihiin ba Sweden hadda waxaa lagu jiraa lockdown oo waxaa laga aqristaa online-ka. maasha Allah tabarakallah walaalahayga qaaliga marka soo dhawaada goobkiin shaaxa soo qaata anisa arkaysa meesha biyo iyaalo ayaan saacadeesa ku jira kiilooyinka rawa inaan iska dhimo marka insha Allah adinkane goobkiin shaaxa soo qaata ama cabitaan ama biyo waxa jeceshihiin. maanta waxaa jeclaystay inaan wax yar soo dhiirigelin idin la wadaago taasoo community-ga ka soo jeedno Soomaaliyeed hadaan ahnayo mar kasta waxa dhahnaa gabar haday wax barato ugu dambeyntii jika ugu dambeeyso ma wax amala maamaadiga soo sax ma fahanteen laakiin walaa waxa dhii lahaani maamadaas muu aaminsani gabar wax barato waa bulsho wax baratay hada wax baratid ilmahaaga wax u baratay naftaada wax u baratay qoyska iyo family-gaaga wax u baratay marka waxa dhii lahaa gabdho hasnid jawinina wax waa bari kartiin inta yartihiin inta weyntihiin kulli wallahi wax barashada maanta dib ku anficin bari ku anficaysa ma fahantay marka insha Allah wax barashada ku dadaalno. marka asxaabteeda qaaliga hadii aad jeclaan lahayd inaad wax ka ogaatid waxa barto ani waxaan bartaa assistance nurse waana sanadkii ugu dambeeyay insha Allah hypnosis ayaan dhigtaa sanadkan ayaa ugu dambeeyay iskuulka haduu la yiraahdo waana dugsiga sare dhigtaa hada sanadkan ugu dambeeyay waaye haduu la yiraahdo hadda saarigtaan buug waa soo dhameeyay xajigayga imaaday marka halkaas taagan uu sheekinoyaa. marka asxaabteeda qaaliga waxaan rajeynayaa videogan aad ka heshaan hadii aad ka heshaan like comment iyo subscribe inta way noo saaran waan kaaga mahadcelinayaa sidoo kale inoo sii share garee oo family-gaaga la wadaag. asxaabe waxaan kaloo rabaa inaan ii sheego inta ii daawato 50% waxa subscribe inta kale subscribe ma aha marka waxa ka codsanaynaa subscribe ay saartay gambaleelkana furato like iyo share iyo commentina xaqiina waaye marka insha Allah hada wax barashada waa soo dhameeyay meesha soo kala hagaajiyay. marka asxaabe jadwalkayga maalinlaha ahad inta aan ayuu u egyahay